laga beeri jiray haddana qaar badan laga beeraa nooc kasta oo miro ah oo badiba dhulka kulaylaha ka baxa waxaa aad u faafay dagaallo colaad meel walba gaartay waxayna jug weyn u geysatay wax soo saarka dalka wax u geysatay waxaa xoog la saaraa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha amniga labaduba lagama miro dhalin karo haddii dib u dhiska dhaqaalaha uusan barbar soconin maxaa jira dhaqaalaha waa midka keenaya dadka inay shaqooyin ka helaan inay maxaan ku raahdaa isku filaadaan dhinac cunnada isaga filaadaan inay maxaan ku raahdaa ka baxaan gaajada waxyaabahaas dhan waa dhaqaalaha ay ku xiran tahay waxyaabaha guushan ka dhalin oo kale waxaa ka mid ahay in aanu sokorta aad bay Soomaalida u cuntaa inaan gaarnay inaanu isku filaano sokorteena inaan dalka gudihiisa ka soo saarno marka la isku daro warshadii maxaan ku raahdaa Jowhar iyo team Mareere marka la isku daro sokor banaanka noogama imaanin maartay laakiin hadda waxaan ku jirnaaba heer dadkeena aan quudin laana marka waajibaadka ugu horeeyana hor saaran waxa waaye Soomaaliya oo saas qani u ah 8 milyan oo hektar leh laba wabiyo biyo ay marayaan roobab fiican ay u da'ayaan in dadkeena ay gaajo ay iyo macaluul ay hesho ama ay u dhintaan ayaaba tan ugu ceebta ugu weyn oo haysata ah nasiib darrada ugu weyn oo haysata ah taasa marka waxa la rabaa in haddeerta qorshe fiican loo dejiyo oo Ilaahay uu suurtagal ka dhigo in 4 sano wax soo saarkeena uu kor u kaco dadkeenana aan ku filaano haddii abaar timaadana abaar waa dhacdaa abaar waxay u dhacdaa roobabka yaraado waa wax rabbaani oo mataqaana annaga aan cidina waxba ka qaban karin laakiin in loo dhintaa gaajo loo dhintaa waa wax ku xiran bulshadaas iyo maamulkeeda dawliga ah waa maanta aan cidina isticmaalin meel walba joogan qaarna dalka gudihiisa joogan qaarna dibadda joogan waxay u baahan yihiin kaliya in maxaan ku raahdaa loo abuuro fursad aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda iyo kartidooda ay dadkooda ugu adeegaan waxaan aragnay haddii saas la sameeyana inay suuragal tahay in isbeddel weyn la sameyn karo